daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furda wararkii ugu dambeeyey ninka lagu magacaabo Axmed Madoobe ayaa garab u doontay imaaraadka carabta isla markaasina sidii ugu hor imaan lahaa madaxweyne farmaajo dhaqaale xooggan ugu weydiisan lahaa imaaraadka carabta ayaa warar hoose soo baxaya inuu halkaas u duulayo isla markaasina la doonayo inuu dhabarjibiyo madaxweyne farmaajo oo xilligiisa sii dhamaanayo isla markaasina weerar dhan kasta ah oo ku qaado asaate wararka ugu dambeeyay ayaa daawanaysan daawadayaal subscribe saar caalamsida media madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku wajahan magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga imaaraadka carabta halkaasi oo uu xiriir toos ah u leeyahay isla markaasina garab uu ka helayo maadaama imaaraadka carabta ay si weyn ugu soo horjeedo dhaqaaqa madaxweyne farmaajo isla markaasina farmaajo cadow ay la tahay asaate imaaraadka ayaa garwaaqsaday inay garab xooggan siiyaan Axmed Madoobe maadaama dagaal dhan kasta ah oo kula jiro farmaajo madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland ayaa u aadaya imaaraadka carabta inuu mashaariic cusub la soo saxiixdo dalkaasi kaas oo ka saacidaya hirgelinta qorshihiisa cusub ee maamulka Jubbaland isla markaasina sidoo iskaga celin lahaa madaxweyne farmaajo cunaqabateen dhan walba ka saaray isla markaasina inta ka harsan xil doorashadiisa madaxweyne farmaajo iska geejin lahaa ayay garab ku siinayaan wararka ka soo baxay halkaasi wararka qaar ayaa sheegay in madaxweynaha diyaarad gaar ah ka qaadayso magaalada Kismaayo taas oo ka imaanaysa imaaraadka carabta inkastoo warkaasi xaqiiqdiisa si rasmi ah loo humin laakiin warar qaar ayaa sheegaya waxa macquul ah inuu jeebkiisa ka qarash garaysto isla markaasina oo dhanka ay Kenya maro si kastaba ha ahaatee ma dhici karto in diyaarad imaaraadka laga leeyahay ay si toos ah xadka u soo gudubto khadka Soomaaliya isla markaasina ay ka soo degdeg Kismaayo ee ka qaado taas ayaa laga yaabaa inay caqabad weyn kala ku mid karto maadaama cilaaqaadkooda aad u hagaagsaneyn Soomaaliya iyo imaaraadka carabta waa inay amar soo siisa ama Muqdisho soo marta haddii ay soo qaado haddii aysan arrintaas suura galayna waxa macquul ah ayaa la leeyahay in uu madaxweyne Axmed Madoobe dhankaas maray doono iyo Kenya ahaatee arrintaasi ayaan la hubin inay diyaarad imaaraadka to Kismaayo to imaaraadka inaysan dhici doonin maadaama arrintaas lagu qabsan karo imaaraadka carabta imaaraadka carabta ayaa xiriir wanaagsan la leh maamulka Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo khilaaf ba'an kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne farmaajo isla markaasina fallaago ka ah isbahaystay si kastaba ha ahaatee ayay imaaraadka carabta labadaasi maamul garab siinayaan imaaraadka carabta ayaa dhaqaale iyo mid farsamo ku taageero maamulkaasi kuwaas oo sababay inay dawladda federaalka Soomaaliya ku raaci waayaan go'aankii ay ka qaadatay khilaafkii dawladaha khaliijka isla markaasina lagu go'doominayay dawladda Qatar ahaatee arrintaasi ayay garab isku haystaan waxaa la leeyahay Puntland iyo Jubbaland ayaa iminka khilaaf xooggan kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay garab xooggan la leeyihiin imaaraadka carabta haddii warkaasi aan ka baxno waxaa macquul ah maalmaha soo socda inay arrintaasi soo shacbaxdo si kastaba ha ahaatee wixii warar ku soo kordha dib ayaad kala daawan doontaan calansida media dhinaca kale Kenya oo shaacisay inay laysay dablay al-shabaab oo lagu tuhmayay bus weerarkii halkaasi ka dhacay isla markaasina weerar xooggan ay soo qaadeen ururka al-shabaab ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 nin oo ka tirsan weerarkii al-shabaab ee lagu qaaday bas marayay meel u dhow magaalo xeebeedka Lamu isla markaasina weerar ay ku soo qaadeen markii baskii uu ka fakaday kadibna ay ciidamada lugta ay galeen halkii weerarka laga soo qaaday isla markaasina ay ka taba tageen ay dhamaantood soo dileen waxaa lagu dilay weerarkaasi buska 3 qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmay soo gaaray kadib markii W hubaysan rasaas oo ugu qaadeen baska oo ka yimid magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya ragga laga shakisan yahay inay weerarka soo qaadeen ayaa waxaa la dilay saacado kadib markii ay ciidamada ammaan ku sameeyeen howlgallo dabagal ah isla markaasina halkii ay ku baxsadeen laga dabagalay halkaasina lagu soo qaarajiyay booliska ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay nin la sheegay ama nin la qabtay xilligii howlgalka oo lagu shakisan yahay inuu ka mid ahaa dableydii buska weerar isla markaasina gacanta dawladda ku hayso ma jirto cid sheegatay weerarkii buska balse al-shabaab ayaa weerar noocan oo kale ah oo isla goobahaasi horay uga qaaday basas iyo gawaari ay boolisku leeyihiin oo halkaasi marayay booliska Kenya ayaa heegan sare ku jira xilliyadii ciidda Christmaska iyo dabaaldega sanadka cusub kadib warbixin ay soo saartay sirdoonka ka digay weeraro ay qorsheynayso ururka al-shabaab sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay dhahayn ciidaha Christmaska ayay damacsiin ururka al-shabaab inay weerar xooggan ku qaadaan Kenya isla markaasina ciidanka Kenya ayaa difaac xooggan la geliyay si kastaba ha ahaatee shabaab ilaa iminka ma aysan sheeganin laakiin Kenya ayaa sheegtay in halkaasi shabaab ay ahaayeen halkaan naga daawanaysa waa calansida media fadlan la joogo ugu horreyn daawadayaal ciidamo ka tirsan guutada commandoska xoogga dalka Soomaaliya ee marka la soo gaabay loo yaqaan danab gaar ahaan guutada 16aad ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Bariire oo Digle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab isla markaasina ay ku diyaarinayeen laba gawaari oo qaraxyo aad u waaweyn isla markaasina ugu talagaleen inay u soo diraan dhanka Muqdisho
saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi si gaar ah ugu fuliyeen deegaanka bolow eyle oo 4 kilomitir u jirta deegaanka Bariile ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ay ku burburiyeen 2 gaari oo xamuul ah kuwaasi oo lagu diyaarinayay qaraxyo ismiidaamin isla markaasina aad u culus isla markaana ay ku dileen ku dhawaad 30 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi goobjoog u ahaa isla markaasina qaraxyadaasi diyaarinayay halkan ay u ahayd xero ahaan si kastaba ha ahaatee 30kaasi iyo gawaaridii ay diyaarinayay ayaan dhulka lagu aasay kadib markii cirka laga soo weeraray taliyaha guudada 16aad ee danabka Shaarle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida uu sheegay howlgalka inuu ahaa mid qorshaysan isla markaana ay ka war heleen inay diyaarinayaan gaadiid qaraxyo ah oo ay doonayaan inay ku waxyeeleeyaan shacabka aan waxba galabsan isla markaasina masaakiinta ah Shaarle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa tilmaamay gaadiidka qaraxyada ku diyaarinayeen inay ahaayeen gaadiid waaweyn oo ah nooca xamuulka isla markaasina ay dhinaca cirka ah ka duqeeyeen taasi oo sahashay iyadoo cidna uu khasaare ka soo gaarin in la burburiyo sidoo kalena kumaandooska ay ugu galeen hawdkii ay ku sugnaayeen howlgallada al-shabaab isla markaasina ay ka dileen 30 xubnood oo ay ku jiraan saraakiil sarsare isla markaasina hawdka markii loogu galay gabi ahaan intii farxadka ahayd la soo laayay si kastaba ha ahaatee taliyahani ayaa ku faanay inay 30 ay dileen isla markaasina burburiyeen gawaaridii qaraxyada ahay halka qaar kalena hawdka ay ugu tabagaleen isla markaasina ciidamada si gaar ah u tababaran ay soo dileen saraakiishii ugu sarsareeyay al-shabaab howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgallo ciidanka kumaandooska xoogga dalka ay danab ee ku todobaadyadii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano ee ka tirsan degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaasina ee lagu xasuuqayo ururka al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sare halkaasina khasaare badan ay gaarsiiyeen si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa khasaaraha kale ee ay soo sheegaan ciidamada qalabka sida duqeymaha isdaba joogga halkaas ka socdo dhinaca kale cabsi xoogan oo la soo daristay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe kadib markii ay waxyeelo geysteen waxaa meel xun gaaray xiisada u dhaxaysa dawladda Mareykanka iyo Iiraan kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka duqeyn ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka Iiraan isla markaasina halkaasi uu ku dhintay muwaadiniinta Mareykanka ee u dhashay ee ku sugan dalka Ciraaq iyo dalal kale oo carbeed ayaa waxaa la soo daristay cabsi xoogan waxaana lagu cabsi qabaa inay Iiraan aargoosi ku dhaqaaqdo muwaadiniinta Mareykanka isla markaasina ay u argudaan muwaadinkii laga dilay war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ayaa lagu dalbanayaa in muwaadiniinta Mareykanka inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ciraaq sidoo kale ay sameeyaan feejignaan aad u weyn isla markaasina xilli kasta ee la kulmi kara duqeymo xoogan madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in uusan arkin sabab ay Iiraan ugu fal celin weydo dilkii loo geystay Qaasim Sulaymaan waxaana uu sidoo kale sheegay in uu aaminsan yahay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ay ku jiraan xaalad xun isla markaasina cabsi xoogan soo wajahday waxa aaminsanahay ayuu yiri in muwaadiniinta Mareykanka military ama diblomaasiyiinba joogta bariga dhexe ay hadda cabsi weyn dareemayaan ayuu yiri madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka isla markaasina dalbaday in halkaas iskaga soo baxaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan wadamo ku yaala bariga dhexe ayaa hadda dareemaya cabsi xoogan waxaana muwaadiniinta qaarkood la sheegay in ay boorsooyinkoodii xirxirteen si ay uga badbaadaan argudasho Iiraan ka timid isla markaasina laga yaabo argudashadooda inay Iiraan xaddaaf ay ka dhigto si kastaba ha ahaatee xiisad xoogan ayaa ka jirta halkaasi oo Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeya madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo shalay ka degay magaalada Gaalkacyo ayaa xalay war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda galmudug isla markaasina xilliga oo ka soo baxay muqdisho isla markaasina kadib afka furtay madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dowlad goboleedka galmudug oo dib ula laabtay awoodii uu horay ugu wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo heshiiskii uu la galay dowladda federaalka Soomaaliya gabi ahaan doodba oo la baxay isla markaasina oo iminka taagan yahay aniga madaxweynihii galmudug ah isla markaasina talada iminka aniga ayaa dhiibay ayuu taagan yahay sidoo kale Xaaf ayaa amray gulihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeennada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeyn 15 bishan Janaayo 2020 ayuu amar degdeg ah ku bixiyay hase ahaatee waxa uu leeyahay awoodeydii hadda ayaan la soo laabtay oo aan kala soo laabtay dowladda federaalka Soomaaliya
madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha ka kooban galmudug saamileyda siyaasadda dalka iyo dhammaan cid walba oo ay khusayso waxa ugu dambeyn 25 bishan janaayo ay isugu yimaadaan shir looga tashanayo jihaynta iyo ka talinta galmudug badqabta ayuu yiri taas oo sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sababay inuu qaato go'aankaasi waxaa ka mid ah dowladda federaalka uu ku eedeeyay iyadoo adeegsanaysa awood ay bedeshay odayaashii saxda ahaa ee beelaha qaar iyo saamileyda kale ee siyaasadda oo ay door ku lahaayeen maamulkaasi ayuu yiri si kastaba ahaatee madaxweyne xaaf oo aad u kacsanaysa markaasina careysanaya iminka kasoo horjeesta dowladda federaalka Soomaaliya taas ayaa la leeyahay waa kala guurkii dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina siyaasi kasta oo ku mucaaradayo si kastaba ha ahaatee xaaf wararkiisa dambe ayaa dib ka daawan doonta daawadayaal khilaafkii oo soo taraya galmudug oo arinteeda meel xasaasi maraysa xaaf oo laga yaabo inuu gaalkacyo kaga dhawaaqo maamul cusub